بسم الله الرحمن الرحيم وولاشي صديقة سيمون إيو مركة لأصحابتي دقالي سو دوادا ميل والباد أدونك تعالى سكجوكتان أصحابي ما شاء الله ما أنتي waxaan rabaa inaan idinkaga faa'iideeyo wax yar oo ii shaqeeyay hadii Ilaahay ka dhigo Rabbiga Raxmaanka ma sha Allah waxa ii shaqeeyay oo korkayga marso horta ani waxaan ahay dadka oo dry skin ka ah oo hadana sensitive ka ah very sensitive qof hadii sensitive la dhaho number 2 dadka ah ayaan ahay saabuun wajiga kuma dhaqi karo waxa la dhahay wax carfaayo kuma dhaqi karo waxaan ku dhahay sensitive midka ugu xun ma taqaana alxamdulillah rabbil alamin laakiin hadda xal baan helay waxaan kareemooyin badan raadiyo iska daba bedelo waxaan waxyaalo badan sameysto kadib alxamdulillah hadda xal baan helay hadda alaabtaas waan wadaa waa wash face iyo maxaa la dhahay cream marka hadda alxamdulillah rabbil alamin kulay marka natiijada ka gaaro ayaan idin soo gelin doonaa insha Allah hadda marka waxa alaabtaan oo tijaabiyay ayaan idin wada hadda ayadana ma sha Allah alaabtaan waxa waaye biyaha gaarsiinka ama saliida gaarsiinka qof bas uu yaqaano iyo gaarsiinkii iyo weel yar aan ku qasan lahaa marka alaabtaan waxaan ku dhahay hadaa marsato habeenkii iyo subaxii ama markaad qabaysato ma sha Allah haday cagaha cirbaha ku adkaayeen dadka wax badan shaqeeyo istaaga ku shaqeeyo kaleeto cirbahooda adeeg ay noqdaan sababtoo qofka saacado badan buu taagan yahay marka hatta sometimes adigoo shaqeynayno dhulka haduu qori yahay ama ilwaax bleen ama roog waxba lahayn oo cagcadaanto kala ku socoto kale cagaha asagan wuu adkeeyaa haday cagaha ku jeexjeexan yihiin oo dildilaac leeyihiin ama safan waxa loo yaqaano hadii cagahaaga maaragtay qaleel mar walba qaleel ay yihiin waxaan ku dhahay alaabtaan ka faa'iideyso ma sha Allah habeenkii intaad marsato shuraab u gasho lugaha ama sharabaado waxaan ku dhahay waxa isleedahay cagahan caga ilmamiya adaa shaki ka qaadaysan ku dhahay ma sha Allah waxaan tijaabiyay ayaana idin wada aniga waxaan tijaabiyay idin soo gelay ma sha Allah marka saxaabay waxaan alaabtaan ma sha Allah ani waa u boogay idinkana ila soo tijaabiyay bal kale waraa ka keenaysiin ma sha Allah war qeyr qabaadna ka keenaysiin insha Allah asxaabtayda qaaliga marka waan isku dardarsanaya gaarsiinkaas waxa laga yaabaa inuu 6 bilood 7 bilood ku haayo because waxaad ku qasaysaa kaligiis ma marsanaysid alaabtaan ku qasaysaa marka bal hadda yani ka hor dhicin la socod wacan halkan waxa ii yaalo waa baaquli eber waa ujeedaan halkaana waxa ii yaalo cream hore ugu qastay marka inta sirta ay iga dambayso marka waxaan rabaa inaan ka sir qasto waxaan sameynayaa creamka waa ujeedaan intaas ayaa kugu filan intaas waxaan ku dhahay 2 week ama 3 week kugu filan marka intaas ku shubto halkaas waxa sameynaysaa saliidana waxa ku daraysaa labo saddex sababtoo ah wuu ku barakoobaya ma fahmaysaa si fiican uu kugu barakoobaya wajiga ha marinin laakiin hadda sensitive ahayn adoo marsan kartaa laakiin aniga intaan baadhiga oo dhan waa jirka oo dhan meel uu diidayo ma lahan waxaa sameynaysaa korkaaga oo dhan gacmaha haday madmadow xataa meelahan ku leeyihiin aad ku leedahay sababtoo biyo kulul mar walba alaabta lagu dhaqaa gacmaha madow way noqonayaan gacmaha adi jirkaaga oo dhan waa kaas ma sha Allah muxuu gaarsiin ka duwan yahay hal qaada kalaan ku daraya qaadadaas wali waa ujeedaan waa qaadada yar maxaan ku dhahay qaadada yar shaaxa waaye ta cuntada ma ahan fiiri waa kaas cream caadi korkaaga waxaan ku dhahay shiny aan ku dhahay shiny ma sha Allah jileecaan ku dhahay jileeca korkaaga sabiibaha ya quruxda ma sha Allah alaabtaas waa ujeedaan taasi u barkooday marka ani waa diyaarsadaa halkaan aan ku shubtaa marka waan ku shubanayaa waxaan ku dhahay waaxyar hadaad marsato korkaaga aad mariso ma sha Allah soo kuugu badanayo oo kuugu barakoobayo
وديابيسا كرالي نقض الباب كاسيت ilmo yar yar aad jooga meesha marka way xirayaan way furayaan akasa adi weelkii oo munaasabka ku ah oo markaas aad haysato ayaad ku shubanaysaa aan laakiin kana ku shubtaa waxaa sameynaysaa banaanka iska dhigaysaa frinjeer uma baahna wax uu u baahan yahay malahan gacmahaygan gelinaya waa idin tusaaya marka saliidiisu u leeyahay asxaabtayda akasa banaankaas iska dhiganaysaa wax dhiba malahan inta sirista ayaa saas u badanaysa inta akasa inta iska badan gacmahayga in ma tusi karo iga raali noqdo laakiin waa u jeedaa intii yariista ahayd saa halka ka soo tirsay noqotay marka saas uu u barkoobaya uu u badanaya korkaagana saas uu saliid u yeelana ma sha Allah korkaaga duu dadka war darayga yahay aad iyo aad u korkaaga ma aragtay ma sha Allah qurux kuugu noqonaya meelahaas oo kale madmadowga ah aad ugu fiican yahay asxaabteeda marka waa ka saahay ka faa'iideysi wacan baa idin leeyahay aniga wixii ii shaqeeyo dhan waa idin keenaya marka asxaabi hadaa ka hesheen like iyo share iyo commentiga intaba haynaga hilmaamina waa walaashin sadiiqa simano idin leh mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawaada asxaabta igu qaaliga ah waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh